marka da'diisu ahay 15 sano waxa uu xifdiyey 70,000 oo xadiis. Isagoo hurdaya ayuu ku riyooday isagoo ku babinaya Nebiga sallallahu calayhi wasallam marwaaxad, kana celinaya cayaanka. Haddaba, maxaa ku dhaliyay Imaam Bukhaari in Nebiga sallallahu calayhi wasallam xadiisyadiisa saxiixa hal kutub isugu geeyo? Muuqaalkani iguma hadlayo taariikhda Imaam Bukhaari, laakiin waxaan uga hadlayaa sida ay ugu dhalatay in axaadiista Nebiga sallallahu calayhi wasallam hal kutub isugu geeyo iyo dadaalkii uu u maray. Waxaan uga dan leeyahay in baraarujin ay u noqoto qof kasta oo nolosha han sare ka leh oo doonayana in magaciisa adduunkan uu ku waariyo. Imaam Bukhaari marka da'diisu ahay 15 sano waxa uu xifdiyey 70,000 oo xadiis. Markii uu gaaray 16 sano waxa uu kor ka hayay kutubta Cabdullaahi ibnu Mubaarak iyo ibnu Wakiic ibnu Jarraax. Isagoo maalin fadhiya darsi uu bixinayo imaamkii weynaa Isxaaq ibnu Raawayhi iyo imaamkii ardada waxa uu ku yidhi, ficnaan laheeda in la helo qof hal kutub isugu geeya dhammaan axaadiista saxiixa ee Nebiga ka sugnaaday. Hadalkii imaamka waxaa si toosa dhegihiisa uga dhaceen Imaam Bukhaari, wuxuuna naftiisa ku yidhi, maad adiga noqotid qofka sidaas sameeya. Maalintaa waxa ka dambaysay Imaam Bukhaari waxa uu go'aansaday inuu safar u galo meel kasta lagu sheego sheekha ee axaadiista ka sugnaaday Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Go'aankaasi uu qaatay waxaa ku dhiirigeliyey riyo uu ku arkay manaamka. Isagoo hurdaya ayuu ku riyooday isagoo Nebiga sallallahu calayhi wasallam ku babinaya marwaaxad, kana celinaya cayaanka. Riyadii waxa uu weydiiyey kuwa fasira, waxayna ku fasireen in Bukhaari uu Nebiga sallallahu calayhi wasallam difaaci doono, kana celin doono dadka ku been abuurta oo laga wariyo xadiid uusan dhihin. Bukhaari isagoo 16 sano jir ah ayuu galay safarkii ugu horeeyey, wuxuuna aaday magaalada barakeysan ee Maka isagoo raacaya hooyadii iyo walaalkii ka weyn. Markii xajka ay soo guteen Bukhaari ma soo raacin, wuxuuna ku haray magaalada barakeysan ee Maka si culimmada halkaa joogto uga barto cilmiga. Muddo kadib waxa uu aaday magaalada uu ku aasan yahay Nebiga sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna ku alifay kitaabkiisii ugu horeeyey isagoo jira da'da 18 sano. Isagoo ka sheekeynaya meesha uu ku qoray kitaabkani waxa uu leeyahay, markaan qorayay kitaabka waxaan qoray anigoo fadhiya inta u dhaxaysa qabriga Nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo rawdu shariif ah. Ma haysan iftiin, laakiin waxaa iftiin ii ahaa dayaxa. Kitaabkani waxa uu Bukhaari kaga sheekeynayaa 40,000 qof taariikhdooda. Wuxuuna yidhi marka qof kasta taariikhdiisa aan bilaabaya waxaan tukadaa 2 ragcadood oo sunno ah. Haddaba, 40,000 oo qofood qof kasta marka uu taariikhdiisa bilaabayay waxa uu tukanayay 2 ragcadood oo sunno ah, taasoo ka dhigan in kitaabka marka uu dhammeeyey uu tukaday 80,000 oo ragcadood. Marka uu dantiisa ka dhammaystay magaalada Madiina ayuu aaday magaalada Basra ee dalka Ciraaq. Marka uu soo galay magaalada Basra waxa uu arkay inuu ka soo hormaray magac wanaagiisa, wuxuuna leeyahay, markaan soo galay Basra waxaan u tegay imaamkii la oran jiray Maxamed binu Bashar, markaasuu ii weydiiyey halkee u dhalatay. Waxaan uga jawaabay magaalada Bukhaara. Haddana waxa uu ii weydiiyey, iga waran Abu Cabdullaahi al-Bukhaari. Markaasi ayaan aamusay. Asxaabtii la fadhiisay imaamka ayaa ku dhahay, yaa imaam, waa Abu Cabdullaahi al-Bukhaari. Markaasi ayuu gacanta qabtay oo ugu yidhi, soo dhowow wiilka muddada badan ku faani jirayow. Sidee ayuu ku qoray Imaam Bukhaari kitaabkiisa Saxiixul Bukhaari? Imaam Bukhaari isagoo ka sheekeynaya sida uu u qoray waxa uu yidhi, 1,080 qof ayaan axaadiista ka soo qoray. Markaan ka soo qorayay waxaan qof kasta weydiinayay magaciisa, kukunyadiisa, naanaystiisa iyo sida xadiidkan uu ku soo gaaray. Kitaabkan axaadiistaan ku soo qoray waxaan ka soo xulay ilaa 600,000 oo xadiid. Waxaan qorayay 16 sano. Waa muddo aad u fog. Markuu dhammeeyey qoridda kitaabkani waxa uu u bandhigay culimmadii waaweyned ee markaasi joogtay sida Imaam Axmed binu Xambal, Imaam Yaxya ibnu Maciin. Markii ay akhriyeen way u boogeen, waxayna ugu markhaati kaceen axaadiista ku qoran ay tahay saxiix. Marka laga reebo 4 xadiid, 4tii xadiis marka la sii dabagalay waxaa caddaatay in iyagana ay yihiin saxiix. Sida ayuuna ku soo saaray buuggiisa aan wada naqaano ee Saxiixul Bukhaari. haddiiba mar afkaaga ay ka soo baxdo waa Saxiixul Bukhaari xadiidkan, qof kasta oo muslima wuu aamusayaa sida ay u kalsoon yihiin. Alle ha ka ajarsiiyo Imaam Bukhaari dadaalkii uu u galay sida uu axaadiista saxiixa ah nagu soo gaarsiin lahaa. Halka ayuu ku egyahay muuqaalkan. Waxaan idin rajaynayaa inaad ka bogateen qisadan. Inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa qisooyin aadan weligaa maqlin, wax badanna ka faa'iidi doontid.